شيخ قف كلا يوحولي السلام عليكم ورحمة الله مقعيق وحسن جمعالي وحان كنو الله مقدشة الصومالية وحان السلام يا شيخ يا دمان بحث الصومالي جنال وحان ربا إن شيخ ويديو العق ولالكي وقريدو وليه مكوش قيسان كراه هديا مكوش قيسان كراه هبكي وكوش قيسان كراه الحمد لله horta salaanta waa ka qaadnaa walaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh marka koobaad marka labaad lacagta walaalka uu geeriyooday dee dad baa iskale oo dhaxal bay gashaa ciddii dhaxalka xaqa u lahayd hadday yihiin dad iyagu mas-uuliin noqon kara ama dad adiga kaaga dhowo dad uu dhalay oo mas-uul noqon kara ay leeyihiin ama uu aabba joogo idinka aabbihiin oo mas-uul ka noqon kara xoolaha mas-uuliyaddeeda adigu ma lihid inaad ku shaqayso iyo inaad iska haysana maamulkeeda xaqu ma lihid ciddii maamulkeeda lahayd baad kala xaajoon haddaad markaa ku shaqaynayso cid kale maamulkeeda leedahay dee waad heshiinaysaan qaabkaad ugu shaqaynaysa sidii qof ajnabi ka abaa tahay inaad mudaarabo gelaysaan oo faa'iido qayb noqonaysaan inaad ku shaqayn oo faa'iidada qayb lagaaga magacaabi inaad mushaar ka qaadan oo ijaar ka qaadan hadba cidda mas-uuliyadda leh baa baahida jirta iyo furaska jira wixii dan maslaxada dadka xoolaha leh u ah ciddii kale matalaysaa kaala gorgortami haddii ay dhacdo dadkeena yaryar yihiin cidda weligoodii ay wilaayadooda hayaan adigu aad tood xoolihii gacanta ku hayso falyakul bilmacruufi baa tahay wixii curfiga ah ee xoolaha ciddii ka shaqaysa ay ka qaadato baad ku leedahay falyakul bilmacruufi haddaad kaba maarantana xoolaha inaad u daysa wey waxaad xaq u leedahay cid kale inaad kula heshiiso adoo adigii matalaya laakiin mushkiladdu waxay ka timaadaa markii adigii labadaba inaad noqoto aad doonayso tadaarubulmasaalix ay noqoto iyagiina cid u gorgortantay u baahan yihiin xoolahoodii adigana cid kuu gorgortay ku shaqaysiga waad u baahan tahay wax hadda luqadahan kale ay yidhaahdaane conflict of interestiga ay yidhaahdaan oo kaleeta wey culummadeennii hore waxay arrimahaas u ogolaadaan awow oo kalaa jira awowgu waxay yidhahdeen labada ilmood ee uu dhalay caqdiga labada waa u qaban karaa waayo way u siman yihiin wuxuu u kala exda ma jiro laakiin adiga agoon markay xoolahaad maslaxadu timaado adi taadaa ku xigta saas darteed adigu mudaarabada aada la gelaysaay cid iyagii matashaad u baahan tahay caqdigii labada daraf qofkii qabanaya ma noqon kartid haddaad laakiin ugu shaqaynayso qadarka curfiga ijaarka laga qaato shaqadaas oo kaleeto baad xaq u leedahay haddaad ka maarantana inaad isaga badayso isbilaad ugu shaqaysaa fiican wabillahi tawfiiq haddii uu wax dhalina sheekh ilaa inuu dhalay meesha kuma taalo hay waataan ka hadlaya xoolahan dadkii dhaxalka lahaa wey labaan u qaybiyo waxaan ku yidhi hadday dad waaweyn iyagu mas-uul noqon kara leeyihiinna dee iyagaad xoolihii ku wareejin ood kala gorgortami haddii kuuba diidaan war iska tag ku dhahana waa iska tegi hadda adigu ilmo yar iyo dadkii masaakiinta ay xoolaha lahaa adu mas-uul aad ka tahayna dee adigu labadii daraf ma matali kartid kii ku shaqaynaya iyo kii loo shaqaynaya ma wada noqon kartid kaliya inaad u shaqaalo ahaan u noqoto ood ijaar qaadato oo curfiga wixii la qiimeeyo iyo cid kale inaad kula gorgortanto ay ku shaqayso adnaad bannaanka ka marato ijaar uga hal dhinac matashaad yeeli kartaa labadiiba dee adigu danta labada danoodba daacad kama noqon kartid billahi tawfiiq